marka laga yimaado Iiraan yay tahay cidda xigta waa su'aasha la isweydiinayo badankiin waxa laga yaabaa inaad garanaysaan jawaabta su'aashan maxaa yeelay dawlado badan ayaa jira oo Israa'iil is hayaan laakiin Israa'iiliyiintu ma aysan qarin ba cidda ay doonayaan inay bartilmaameedka labaad ay ka dhigtaan Naftali Bennett waa ra'iisul wasaarihii hore ee Israa'iil wuxuu si cad u sheegay in Turkiga ay tahay cidda xigta oo Iiraan kaga daran marka la joogo waqti xaadirkan aan daawano khudbadiisa. And from here I warn, Turkey is the new Iran. Erdogan is sophisticated, dangerous. Israa'iil waxa laga yaabaa inay Turkiga u arkaan caqabad xigta laakiin Israa'iil iyo Mareykanka miyay arrintan ku kala aragtiya duwan yihiin qaar ka mid ah warbaahinta Israa'iil waxay daabacayaan in Turkiga uu kaga daran yahay Iiraan marka la joogo Israa'iil Mareykankana aragtida ka duwan ayuu qabaa laakiin marka la eego dagaalka hadda soconaya sida ayaa loogu kala aragtiya duwanaa haddana dhiiqada dhexda ayaa laga joogaa maxay tahay waxyaabaha Turkiga uu dareensan yahay waqti xaadirkan iyo dhaqdhaqaaqa xooggan ee socda macluumaadka sirdoon ee la helayo iyo feejignaanta Turkiga warbixinno iyo falanqayn istiraatiiji ah ayaa ka hadlaya suuragalnimada in gobolka u dhexeeya bariga dalka Turkiga iyo galbeedka dalka Iiraan la doonayo in laga abuuro waxa lagu tilmaamay koox argagixisa ama halkaasi in laga dhigo mar inay ku xoogeystaan kooxaha hubaysan qaar ka mid ah warbaahinta dalka Turkiga iyo falanqeeyaasha istiraatiijiyadeed ee Turkida ayaa si weyn arrintan u hadalaya wixii ka dambeeyay markii dagaalka Iiraan uu bilowday qorshahan waxa la sheegay inuu la mid yahay sida qaabkii hore ee waqooyiga dalka Suuriya looga abuuray kooxaha hubaysan taas oo qayb ka ahayd qorshaha go'doominta Turkiga halkaas oo kooxaha hubaysan ay ka sameeyeen aag ay ku shaqeeyaan saameyn ay ku yeeshaan marka laga hadlayo amniga gobolka aagga laga hadlayo waa qaar ka mid ah gobollada ku yaala dhanka bari ee dalka Turkiga sida gobolka Hakkari, Ari iyo sidoo kale Iqdir kuwaas oo si toos ah ugu dhow xadka dalka Iiraan dhanka Iiraan marka la joogana waxa laga walaacsan yahay in isku xirkaas uu ka soo bilowdo galbeedka gobolka Azerbaijan lagu magacaabo ee dalka Iiraan iyo bariga gobolkaasi gobolkan waa dhul buuraley ah oo sida la sheegay ka tirsan buuraha loo yaqaan Zagros taas oo ka dhigaysa meel ay adag tahay in si buuxda loo xakameeyo suuragalna ay tahay kooxaha hubaysan inay buuraleyda ay ku dhuntaan isla markaana mararka qaarkood ay ku shaqayn karayaan kooxaha hubaysan ee ka gudbaya xuduudaha labada dal qorshahan waxa la sheegay inuusan ahayn wax hadda soo bilowday sida falanqeeyaasha Turkida ay qabaan falanqaynta arrintan waxay sheegaysaa in haddii halkaasi aag noocaani oo kala laga sameeyo ujeeddada ugu weyn inay noqon karto in la sameeyo aag gabi ahaanba kala xiri doona Turkiga iyo Iiraan gaar ahaanna gobolka loo yaqaan Azerbaijan oo gudaha dalka Iiraan ah talaabadaasi waxa lagu tilmaamay mid saameyn weyn ku yeelan karaysa xiriirka juqraafiyeed iyo kan ganacsi ee dalka Turkiga sidoo kale waxa la doonayaa in saameyn weyn lagu yeesho oo la kala dhex galo xiriirka dhanka ganacsiga ee u dhexeeya bartamaha Aasiya dalalka ku yaala iyo dawladda Turkiga waana go'doomin kara oo dhinaca kale ah waxaa jira heshiis dhawaan dhex maray Qobrus, Gariiga iyo Israa'iil waxayna falanqeeyaal badan ay ku tilmaameen inay qayb ay ka tahay go'doominta dhanka badda ee dawladda Turkiga waxaana Qobrus la geenayaa agab aad u badan oo tiknoolajiyad ah oo Israa'iil ay leedahay Turkida waxay muddo dheer isku dayeen inay xoojiyaan xiriirka dhanka dhulka iyo ganacsiga u dhexeeya Turkiga, Azerbaijan, badda Caspianka iyo bartamaha qaaradda Aasiya dalalka ku yaal taasoo qayb ka ah mashruuca loo yaqaano wadada xiriirta ee bartamaha waa wadda ganacsi oo muhiim u ah Turkiga iyo isku xirka Aasiya iyo qaaradda Yurub haddii gobolka u dhexeeya Turkiga iyo Iiraan uu noqdo marka meel ay ka jiraan qalalaaso ama lagu abuuro kooxaha hubaysan waxa suuragal ah in xiriirkaasi ganacsi iyo istiraatiijiyadaasi gabi ahaanba meesha ay ka baxdo oo ay u dhamaato waxayna dhibaato ku noqon doontaa amniga Turkiga warbixinada qaar waxay sheegayaan in haddii xaalad noocaani oo kale ay dhacdo in halkaas ay ka soo muuqan karayaan kooxaha hubaysan sida PKK, ISIS ama kooxo kale oo ka shaqeynaya xuduudaha labada dal kooxahan ayaa inta badan ka faa'iideysan karaya dhulka buuraleyda ah iyo xuduudda adag si ay uga howlgalaan meelo badan oo isku dhow arrintan waxaa sidoo kale lagu tilmaamay inay khatar istiraatiijiyadeed ay ku noqon karto amniga Turkiga iyo Iiraan labadaba maadaama xuduudooda dhanka bari ay noqon karayaan meel ay ka abuurmaan qalalaaso ama dhaqdhaqaaqyo hubaysan sidaasi awgeed falanqeeyaal badan waxay sheegeen in labada dal ay si dhow ula socdaan xaaladda gobolka isla markaana ay kordhin karaan iskaashiga dhanka amniga iyo militariga haddii khatar la dareemo oo halkaasi ka imaanayso laakiin hadda Iiraan dagaal adag ayay ku jirtaa Turkiga wuxuu doonayaa inuu iska soo laalaabo uu ka dhamaado mashruuca dhanka amniga ee xadka dalka Syria inkastoo Syria isbedel uu ka dhacay oo xulafada Turkiga la sheegay inay la wareegeen haddana halkaas weli cabsi ayaa ka jirta waxaana mar walba la adeegsan karaya kooxaha hubaysan oo taageero ka helaya reer galbeedka suuragalnimada samaynta aag qalalaase oo ka dhex abuurma xadka Turkiga iyo Iiraan waxay noqon kartaa arrin saameyn ku yeelan karta amniga ganacsiga iyo istiraatiijiyadda gobolka Euro-Aasiya gaar ahaan xiriirka u dhexeeya Turkiga, Azerbaijan iyo dalalka bartamaha qaaradda Aasiya sidoo kalena arrintan waxay saameyn weyn ku yeelan kartaa sida qubarrada ay sheegeen siyaasadda iyo amniga guud ahaan ee gobolka oo kaliya Turkiga iyo Iiraan ma saameyn doonto sababta looga baqayo qalalaaso weyn oo Turkiga ama Iiraan ka dhacana waa inay u dhow yihiin xuduudaha wadamada qaaradda Yurub amni darradana halkaas ay gaari karto maxay kula taadiga qaybta aragtidaada ku reebad mahadsan tahay